yo soonkan asoomanta waxa ku dhigi karaa saaxib waa gift oo Allah xaqiis kaaga timid brother saa darteed marka ku giftiis Allah ku hibay anna waxa ku leeyahay hambali saaxib Ramadaan Kariim sababtoo ah dadka dhan mehenan adi ayuu si qaas Ilaah ku siistay waayo dad badan oo ku haminaya inay soonka soo gaaraan dad badan inay soonka horsameen kana rajeynayaan inay gaar laakiin si qaarkood ma calfsan sidaa darteed marka adi waa heshay waa gaartay waxa loo baahan saaxib inaad ka faa'iideysto dhan kasta loo eego waayo soonku waxa la waa opportunity brother waa fursada ugu weyn qofka ha ahaat aakhiriisa ha ahaat adduunyadiisa waxa loo baahan saaxib dhan kastaba inaa uu faa'iideysto ayaa loo baahan sidaa darteed marka waxaan jeclays inaan kullu wadaag saaxib faa'iidooyinka ugu weyn ee soonku wato si aad u faa'iideysto adduunya aakhirba waayo waxa ku jira saaxib maalmo ka duwan brother sidaa darteed marka waxa u baahan tahay maalinta inaad ka faa'iideysto faa'iidooyinka uu qaasatan aad ahaan shakhsiyan kugu lahaa karna inaa uu faa'iideysto adduunya aakhirba waa loo baahan sidaa darteed marka waxaan jeclays saaxib inaan kullu wadaag faa'iidooyinka ugu muhiimsan waa ogna faa'iidooyin badan oo jiro oo caan ah faa'iidooyinkaasi waa faa'iidooyin caan ah dad badan yaqaan laakiin dhalinyaro ahaan faa'iidooyinka ugu muhiimsan oo aad u baahan tahay iyo sababta u baahan tahay gaajo inaka saaxib anaa kullu wadaag kow soonka faa'iido ugu muhiimsan ugu weyn waxay tahay saaxib oo dadka dhan wada ogyiin inay ka helaysid iimaan salaada ma taran dukanaysid quraanka akhrinaysid sadaqada bixinaysid waxaas dhan wuxuu ku siinaa saaxib iimaan taama qofku waxa uu qiimo badan u raadiyo waxay tahay iimaan hadaan iimaan lahayn saaxib qof bini aadan oo waxa taa saaxib nolosha cariirinaysa brother sidaa darteed marka waxa isdhihi karaa iimaanka waa mid u muhiimsan qof kasta uu doonayo uuna raadinayo sidaa darteed marka waxa loo baahan si iimaan oo heshid inaad salaadaha joogtaysid inaad soonka hal maalin oo ka fakanin in macnaha oo markaasi quraan akhriska badisid kuwaas waxa ka caawinaysa inaad heshid iimaan xooggan saaxib hadda shaydaanku ka xiraya brother shaydaanka saaxib waa ka maqan yahay opportunity haysta brother oo had isku sii dhis kartid barimku shaydaanku sidaa ninka ku degdeg nin dhisan inaad tahay ku soo degdeg ramko arkan oo ka barsaal raba laakiin hadda dad dicifta saaxib haruun shaydaanku ku imaano ku sii baashaalano saa darteed marka saaxib waa muhiim marka inaad ka faa'iideysto soonka iimaankaaga dhistid faa'iidooyinka soonka uu leeyahay waxay tahay ad adeega ka qaadaysa brother qof waxaan noqonaysaa ad adag brother waxaa jira saaxib salaad taraabix israad tawjid salaadaas waqti badan ay taagneen inta markaas salaada exercise waa brother jirkaasi dhisma murqaaga hoos way adkaanayaan waxaan noqonay qof adag macna waxaan noqonaysaa saaxib qof markaas u diyaarsan nolosha sababtoo ah qofka markuu sooman yahay hadduu qof faad badan lahaay faadka ka dilmaayo faadka ka soo dhimaayo haddii maanta qofkaas yaal hooyo canjeer si waxaas u ahaa indha u kala furnay saaxib indha ku kala furnaa brother waxa dareemaysaa baahida waxa la cadowga marka isku jahdeen saaxib cadowga ka guuleysay oo sidoo bari garaacisay waxa bari baahi waxa dalo maadana saaxib waa ka dhaxbaxsan kartaa waayo waxa taa qof adag brother qof waxa taa bilan waxa soo garaacay ma fahanti waxaana dhacaysa in faadka jirka ku jiro uu gubto oo markaasi qof markaas jirkiisa aad u qurxoon noqdo sidaa darteed marka waxa ka saaciid midaasi inaad adkaato soonka ka saaciid brother bishaan waa bil barkasan brother wax kasto ka caawina dhan kasto ka caawina sidaa darteed marka inaad saas u adkaatid oo faadki badan ka nusqaamo oo hadan exercise kan u jibulqaa ku dhismaan si heshid oo waliba ku ziyaado in macnaha caqabada oo baahida in ka gudbi kartid oo baahida soo garacday waxaas waxa ka caabi saaxib soonka sidaa darteed ma isdhihi karaa saddexda ugu weyn nolosha u baahan tahay ayuu soonka ku saaciday marka waxa isdhihi karaa soonka faa'iidooyinkiisa waxa kamid ah inaad ku adkaanayso noqonayso qof adag qodobka xiga dambi dhaaf ilaahu ku dambi dhaafaa soonkan dhalinyar marka taa saaxib aad ba ugu baahan tahay dambi dhaaf sababtoo ah qaladaadkeena badan marka dhalinyarna saa darteed marka qadiib soonka u dhaaf saaxib dambiyada la soo dhaafay iyo dambiyada soo socda lagu dhaafaa runtii waxa isdhihi karaa waxa waaye waa opportunity brother waa sababtoo u noqday soonka gifti waayo qofku markuu dhalinyar yahay aad ba u baahan yahay sababtoo ah waa ogna saaxib inaad dad caanaysid brother waa ogna inaad wax xadisid waa ogna inaad macnaha dad soo foodeenis brother ku ogaa saaxib wax walba ogna brother sidaa darteed marka waxa isdhihi karaa intaasna waxa u baahanaa inuu ilaahay noo dambi dhaafo waxa isdhihi karaa marka dambi dhaafku aad ba ku muhiimsan qof dhalinyar waana faa'iidooyinka u muhiimsan ee soonka u wada qofka dhalinyar u baahan yahay sababtoo ah hadii uu dhahay tii hore waa lagu dhaafaa tan hoos socodka lagu dhaafaa qodobka xiga aqoon kororsi ha ahaato dhanka diiniyan ha ahaato dhanka maadi waxa badanaa saaxib fursadaha aqoon kororsi brother waxa ziyaada saaxib fursadaha wax ku baran kartid waayo waxa dhici saaxib koorsooyin badan in qaar free la dhigo qaarna discount loo sameeyo taasina adigu wuxuu ku tahay saaxib opportunity aad u muhiimsan sababtoo ah waxa laga yaabaa in koorsooyinkaas ay mid qaali ah hadda kan u dambeeyay ogaansho كورس أصلا ما نيجي وحولها لعشان إيه لا تنعكلي فإذا قوجت شنطة دولار ولا فاي كورس قيمة هذا خلاص وكبدية سادرت مع صديق كورسين قاس ديسكاونت لو سمينا هاي كورسين قاس فري نخنا وحكوتها opportunity برادا وحكوتها سحب فرصة أو أدمد وحكو بركة أخوانت ومد كون مشان خفك بني أدي أخوان الآن وقفتي الآن سادرت مرك أخوانتي أيالون هاي فري أخوانتي أيالون هاي ديسكاونت سادرت مرك وحصديق مرك وواحد أبا هنتاي أنا مهم قوتا مانتا إنك كفى أستب تحسن وحنا كم تسحب فأيدينك بيش الصون سادرت مركا وحسديه كرا أدو كومي سنت إنك كفى ديست فأيدين كسي صفة فقر أوبح
macnaha waxaa ka wada bisha soo markaa joogto saaxib sheet iyo adiga distance aan dhexeynaa sababtoo ah bisha soo markaa joogto saaxib waxaa ziyaada ganacsiga waxaana ziyaada saaxib baahiyoonka ganacsatada sidaa darteed marka shirkado badan ay shaqo abuur sameynaa shirkad kasta waa kartaa waa ka shaqeyn kartaa sababtoo ah shirkadaha ayaga u baahan marka dad waxay rabaan inay daboolaan baahiyaha dadka waxay rabaan inay bixiyaan abaalmarino waxay rabaan inay sadaqooyin bixiyaan sidaa darteed marka adna wuxuu ku tahay saaxib opportunity sidaa darteed marka waxaa jira saaxib dhalinyaro oo markaas Alibaba iyo alaab ka keensan si iibinaya saaxib alaabta soonka way keeneen oo si iibinayaan ma fahanti sidaas lamid marka bulshada marka wax u baahda haddana adeega kaysa kartid Alibaba waxa soo booqanaysa kadib oo keensanaysa kadib adaa si biic kale kartid sidaa darteed marka faa'iidada oo dhalintaas ku kala kacsadeen soonka wuxuu ka mid yahay waxaas aad jeedid faa'iidooyinka soonka sidaa darteed marka si faqri u baxay soonka waa easy brother ka faa'iideysa saaxib soonka dhan kasta ka eeg brother waa opportunity waxaan loo baahay inaad ka faa'iideyso saaxib intaasna in basic aan jecesmaan inuu kula hadii aad ku cusubta saaxib subscribe sar hadii aad ruu joogteen like nu dhiirigal share tu saaxibka gaars ogoowna wax soo socda ka